السلام عليكم أصحابتي كسو دوادا كبر فريحة ما شاء الله ما أنتو حاني هاي سيد ugu fiican ama ugu wanaagsan oo hilibka loo shiilo إن شاء الله وأركي دونا وأنا تسي دونا سيد ugu wanaagsan oo hilibka loo shiilo hadda waxaan soo diyaarsaday hilibkii oo si fiican u soo dhaqay waa in hilibka la iska dhaqaa saxaabay إن شاء الله waxaan soo qaadanayaa saxan fidsan ayaa waxaan ku soo diyaarsanayaa kabsar caleen iyo laba xabbo toon ah haddana waxaan soo qaadanayaa duulayra basbaas guduud ama duqsiga u taqaaniinba qaandada yar ama teaspoon ayaan ku qiyaasi doonaa hal qaando oo basbaas guduud ah ayaan saxanka ku shubtay kabacdi waxaan sameynayaa kabsar caleenta aan diyaarsaday iyo labada xabbo toonta ayaan soo shiidanayaa ما شاء الله وسوشيته وقوانا ولا بده حبة يكبسر عليهم تهاد وحنسوق قادنا يا حواجي كاري أيام سوق قاتي تي سبون قاندا أيام كشف تهال قاندا أما قاندا يربس أو تقانين با بعد وحنسوق قادا دويلا يرادو في الفيش التمن أيام هال قاندا كسمينا يا كترا يا سحنك بارك يفرم واي ما شاء الله ويفرم هذا هلك قاندو أو في الفيش التنيل أيام ماشي كشفتي كبعد وحنسوق قادنا يا عصبة ونكو قياسي دونا قاندو ير أما تي سبون هل قاندو أو عصبة أيام سحن كشوبنايا ما شاء الله هادنا waxaan soo qaadan doonaa chicken soup ama maraq digaag sa u taqaaniinba hal qaanta iyo half ayaan saxanka ku shuban doonaa kabacdi waxaan soo qaadan doonaa hadii la yiraahdo oo korka uga dari doono soy sauce ayaan hadhow kor uga dari doonaa laba qaando insha Allah oo hilibka macaaneenayso u wanaagsan in hilib kasta lagu sameeyo laba qaando korka looga daro ma sha Allah hadana waxaan soo qaadanayaa baaquli godan ayaan wixii isku wada geeyo dhan korka uga shubi doonaa xawaajiyaashiyo dhan ما شاء الله وحي دن ayaan korkiis ku wada geyn doonaa baaquli ku shubanayaa kabacdi waxaan soo qaadanayaa soy sauce ayaan ku shubayaa laba qaando aad iyo aad ayay hilibka u wanaajisaa jilaacna way ka dhigtaa wayna cafisaa soo ani waan jeclahay inaan ku shubto hilib kasta oo sameynayo shiilayo macaan ayay hilibka ka dhigtaa labada qaando ayaan ku shubtay kabacdi waxaan korka uga geynayaa kabsar caleenta iyo labada xabbo toonta aan soo shiitay ayaan korka uga shubayaa ما شاء الله انت مركا سميه waxaan soo dul istaagayaa ovenki baking ayaan taabanayaa kabacdi lambarka waxaan ku dhufanayaa 350 degree waan shidayaa 350 kabacdi waan soo noqday baaquli godan ayaan ku sameeyay biyaro inta flag ayaan ku qiyaasayaa kabacdina waxaan ku shubayaa xawaajiyaasha aan meesha ku diyaarsaday hadana waan isku walaaqayaa waxaan jeclahay inaan gacanteeda ku walaaqo ba hadaad jeceshahay qaanta ku walaaqan kartaa baan galofisaan wataa soo gacantan ku walaaqay aad ina u burburiyaan jeclahay kabacdi hilibka ayaan korka uga shubayaa waa isku wada qasaya isaga dhan kor iyo hoos aan ka galaayo isku wada qasi doona insha Allah ما شاء الله واقصويا وأنا هيلب كل أحجل سيدو قستيد سفي عنه وانا سيدو حواجي جاي سدح جلان دينا دنان إيه دينا قرار إنه سكوسو بحماه وأنا واحدة استحجل سيد ما شاء الله وحنسوق قادم دونا saxanka aan ku sameeynayo hilibka aan saaran doono aan waxaan jeclaa aluminium inaan dusha ka saaro aan ka hoos mariyo hilibka laakiin hadda jeceshahay saxanka waa ku sameeysan kartaa
maasha Allah haddana hilibka ayaan saxanka saari doonaa dhex galgalinayaa si fiican u soo qastay waxaan jeclahay space inaan hilibka u sameeyo sidoo si fiican ugu bislaado insha Allah aad hilibkan healthy u yahay asxaabay wax saliida kuma use gareenin waa hilib fiican maasha Allah ilmaha caafimaadka u fiican yahay saliid malahan guriga kaama orinayo aad ayuu u wanaagsan yahay waa hilib maasha Allah oo si yar wanaagsan oo fududna aan ku karnay haddana suugadii iyo hasta ayaan korka uga wada galayaa hilibka markaan dhameeyay maasha Allah asxaabe xawaajiyaashu dhan way u dhan yihiin haddana waxaan soo qaadanayaa almiyoon aan korka uga daboolo hadii Ilaahay yiraahdo wax kasta waan diyaarsaday oo ku shiban yihiin xawaajiyaashu dhan waa u dhameystiran waan isku wada laaqay insha Allah almiyoon ayaan korka uga dabooli doonaa insha Allah wax yar ka bacdan galnaa waxaan soo qaatay almiyoon oo soo jarta ayaan korka hilibka uga wada dabooli doonaa meelna kama baneenayi sida ofinka u galiyo waa inaan huuriyo maasha Allah caraf uu ku soo bixi doonaa in hilib fiican oo jileec ah insha Allah ofinka waa u jeedin uu ii shidan yahay waa jeekareenaa inuu xoog u kulaaday wax yar ka bacdi galnaa hilibka waa kaas asxaabe hilibka waa galiyay maasha Allah waa arki doontiin la asxaabe waqti ayaa ka soo wareegay hilibka ofinka galiyay waxaan fiirinayaa inuu bislaaday waa jeekareenayaa saa u jeedinba sidoo u gudutay maasha Allah caraftiisa already ma laga sheekeen garaba maasha Allah aad u wanaagsan marka hadda waa jeekareenayaa insha Allah wax yar ka bacdi qaanta soo qaadanayaa saa ugu jeekareeyo maasha Allah bahasha qaandada weyneen ayaan soo qaatay saa hilibka ugu jeekareeyo inuu bislaaday saa ugu jeedinba waa kasa guduudkii qurux uu noqdo maasha Allah wali waa jeekareenayaa aad ayuu hilibkan healthy u yahay hadaa casuumaad sameynaysid hadaa ciyaal haysatid hadaa family u sameynaysid waa hilib aad u fiican waqti badan kaama qaadanayo hadda ayaan sameeyay waa kaasa maasha Allah waa arki doonaa marka wax yar ka bacdan soo saaraya waa kana asxaabe waa soo saaray hilibkii sidoo u qurux badan yahay caraftiisa wax yar ayaan dhadhaminayaa inuu si fiican u bislaaday aad ayuu u wanaagsan yahay maasha Allah walaa waa dhadhamiye waa hilib aad u fiican maasha Allah asxaabe hilibkan lagama sheekeen karo waa hilib aad u fudud sida loo sameeyo maasha Allah caraftiisa lagama sheekeen karo wax ur guriga kaagama harsiinayo waa hilib aad u wanaagsan si yar wanaagsan oo fiican ayaan ku kariyay maasha Allah halkan waxaad kala socotaa kabara fariixa insha Allah fiidiyoga mid ka fiican inaan soo galin doonaa insha Allah fili doonaa fiidiyogana waxaan ugu talagalay dadka waligiis aanan cuntada karinin ama waligiis aan jika galin sidoo cuntada si fiican oo fudud u kariyo maasha Allah ha iloowinayna subscribe and like and share as sameysiin waxa su'aal qabtiina leave the comment insha Allah assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته.